walaalayaal soo dhawaada waxaan ku dhex jirnaa barnaamijkeena qiimaha badnaa aan kula taliyay tala ma qaadanaysaa walaalaha qofkii rabo inuu su'aal soo dirsado wuxuu ku soo dirsan karaa abudalxa1@gmail.com haddana waxaa qaybta dambe su'aalaha inoo sii daadihin doonaa walaalkay saaxiibkay Abu Fawzan فليتفضل أخي. ما شاء الله بارك الله فيك أبو دعوة مغشاء. نعم أخي. وهجاج والله سؤال ولا وسؤال كل شيء عن كل تريه تلا مقادا. سائل كان كل حاجة كلا تلراديس كأ. وحاول يا شيخنا الفاضل وننوي أنا وحير الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ وحنا هينين حاسنا وحنا لها لبعض سنة وحرور حاسكو إيميل علين. gabadhan aan qabana wuxuu yiri waa aan jeclahay waxaan damcay in aan la guursado waxa igu tiri hadaad la guursato ana albaabka ka baxaya waxa kale igu tiri imaam an-nawawi iyo sheekh al-islam ibn taymiyyah waligood may guursan caruurna may dhalan adiga ayaaba xaasle marka bil caruurta aynu iska ahaano sheekh ma sii deyn karo buu yiri gabadha oo aan jeclahay caruurna waan rabaa waxa talaad igu la talin lahayd tafadal mashkuuran wama jira alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وبعد خيرك إلهي بارو برينا تبارك وتعالى حالة أي كسوغيهين يتشعيلك إلا وضع ضبا موجستين إنه إلهي تبارك وتعالى وحي تشعيلك اسكسي دائمين لها إلهي تبارك وتعالى إنه لحظة ضرق خيرة اللهم آمين انت كذب لما تنسنا نحاس أهي قبل إلهي وحبا أولادي قمسين وأنا تشعلهي أولادنا وان ربا هدي أن إلي وان قرسنا وحيتي لأنيقى البابك كبحيا إسلام رهانتا أنوغنا وان شعرها إيضنا ويتشعشها أبو طلح ومحادي ولدتلين لهاي horta waxaan ku dhihi lahaa haddaad xaas kala guursato dee inaad dhalayso war kama haysid waxaad moodaa inaad ku xukuntay gabadhan iyadu inay tahay qofka aan dhalaynin laga yaabaa dee inay iga qarsoon tahay oo intaad dhakhaatiir tagteen ay caddaatay iyadu inuu dhibka yahay taas waa iska suurtagal laakiin kama dhalanayso haddaad xaas kala guursato inaad dhashaa kama dhalanayso waxaa laga yaabaa inaad adigu dhasho waxaa laga yaabaa inaad dhalin waxaa laga yaabaa inaad labadiinaba dhali lahaydeen hadduu ayadana nin guursan lahaa adigana aad qof guursan lahayd ayagana waa suurtagal waxaa kaloo suurtagala in ilaahay idin diyaariyey tabaaraka wa tacaala inaad mar dhow abad awlaad dhali doontaan insha allah anagana waan idin ducaynayna biidnillahi tabaaraka wa tacaala midda saddexaad ma laga yaabaa inuusan khayrba idinku jirin ilmo inaad dhashaan maxaa yeelay allaha xakiimka ah ee wax walba og ee yaqaana ayaa garan kara wixii khayrkiina ah iyo wixii noloshiina ah ilaahay baa garan kara tabaaraka wa tacaala yahabu liman yashaau inaasan ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما نبي الله إبراهيم سوى 8 سنة جرة أي وقت الميه الرئيين والنالي وتتاس قدرك إلهي كرة للنغضة 20 سنة إسقبني الله أكبر تاسا بوحي يرأهين لفتيلا مركا وحاسلها هاي هدي 20 سنة إسقبتين هدان إذن وينينا المركا ورا 20 كقورستين بقى ninka gabadhuna ay taqriiban 17 ku guursatay idinkaaba hadda afartameeye jire isku faataxaysto oo isku cibaadaysto oo waxaa la yidhahdaa ilmuhu inuu khayr ku ahayn baaba laga yaabaa inaad heshana suurtagal inay noqonin baaba laga yaabaaye asalkuna awlaadba ma ahe waa cibaado iyo taaco in la isku gaadhe waxaan ku dhihi lahaa iska cibaadayso iska taacayso taa waa mid haddii aad middaa ay noqon weydana gabadha waxaan dhihi lahaa haddii ay horta dhibaato ma leh inuu qof walba u yidhahdo bal nasiib baan raadinayaa waxba dhibaato a ma leh marka gabadhu hadday ku dhahdo anigu haddaad nasiib raadsato ana nasiib baan raadsano nin walba awlaad saad adigu u rabta baan u rabaa haddii ayadana waa mantiq oo caqli iyo macquul bay kugula noqotay raggu mararka qaarkood wuxuu laga yaaba inuu ku fikiro anigu awlaad kalaan rabaa oo waa istijaabinaya laakiin adiguna waa inaad ugu xidhnaataa malaha waxaa ka ficlan lahayd inuu dhaho ka waran haddaan kala nasiibsano bal adigana awlaad raadsato inuu alla nin kale kaa siiyo ana aan mid kala raadsado waa laga yaaba inay dhihi war maya anu adaan ku rabaaye adigu waxay raadsanaysa raadso sa ay tahay haddana waxaan ku dhihi lahaa haddii aad awlaadna saa u rabto oo aad isleedahay rajo aad ka qabto
awlaaddu waa nicmo weyne hadduu alla ku siinayo guurso insha allahu saasaan ku dhihi lahaa haddaad taladii hore qaadan weyday oo inaad ilaahay iska caabudaana tabaaraka wa tacaala. gabadhana waxaan leeyahay gabar yahay haddii aad adiguna zawjkaaga jeceshahay waad ku sabri kartaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala. waxaa kaloo dhihi kartaa aniguna waan istijaabinayaa dhibaato maleh. marka ama isa soo kala tijaabiya ama isla jooga ama midkiin ha sabro ama isku sabra intaaba waa idiin furan tahay ayaan idin dhihi lahaa. ilahina wixii khayr ahayda waafajiyo wallahu aclam walcilmu cinda allah.